walaalayaal waxaan ku dhex jirnay programkeennii aan kula taliyo talama qaadanaysay sheekheena sheekh abu talxa haddana waxaan u wareegeynaa xaggaas iyo saltex city iyo sheekheena iyo walaalkeena idaa waaqica alakh idaa waaqica maxaa kusoo dhacay xaggaaga bal falyatafadal mashkuuran wamajuuran akhi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الدعوة هذه ما سنت أخي الكريم. الله سبحانه وتعالى هكو بركة وحن جعلها مركه رينا سلام أدي أدو قيمة بدن أن أبد بيه شيخنا الفاضل شيخ محمود أبو طلحة حفظه الله ورعاه شيخنا الفاضل وكجعلنا وكجعلنا دونا الله سبحانه وتعالى أنا هكو جعلاده الله سبحانه وتعالى أنا سيدا أدنو كلنا يسوع أدنو جعدان سهي أدنو وناقل يشرفنا نقرب الله سبحانه وتعالى شيخنا الفاضل هكو بركة شيخنا الفاضل الله سبحانه وتعالى هكو بركة هنقول صار مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك الرفيق. الشيخنا الفاضل خيارته شرفت بدن ودن ويكو سلاميان أد أينا وقفر حسينهين هوشة قيمة بدن لا يعدو هايشو. الشيخنا الفاضل سؤال وجه الرسامة إلى تل ذكوادي وحا يكتب جبر وهو الصوماليات أد أي يقول لي بعد سنة سيدا هذا الكذا كم وقته وحين كعب صار يسألنا دوسود يستمر كهراء marka xiga sheekuna alfaadil waxa ay leedahay waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo ilma ku korsata wadamadan reer galbeedka ah wiil ayaa laga xiray ayay leedahay dhibaato aad u fara badan ayaan ka soo maray wiilkaas aabihii dhalana wuu igu dayacay waan isla joognaa oo ima u safurin ayay leedahay kadibna waxaan la dhibtoodaba wiilkii waa la soo daayay odagii ayaan ka codsaday inaan isku raacno xabsiga oo aan cunuga soo wada wadno laakiin wuu iga diiday inuu raaco kaligay ayaa baxay intii aan wadada markaan wiilka soo helay ee aan guriga u soo waday ayuu telefoon ii soo diray oo igu yiri haddaad wiilka keento waa ku furayaa intaas kadib waan ka dhaga adeegay gurigii ayaan keenay wiilkii iyo aniga oo isla soconna sababtuna waxay tahay wiilku waa jiirtayda meelaan uga harana ma garanayo ayay leedahay hooyada Soomaaliyeed markii aan guriga nimid ayuu wiilkii la hadlay wiilku waa 22 jir wuxuu ku yiri hooyada iyo adigu isku guri kuma jiraysaan ama adigu bax ama hooyada waa furaya wiilkii wuxuu yiri hooyo intii aad aniga madaxayga isku dirir lahaydeen banaankayga ayaan tagayaa oo gidaaradeeda ayaan seexanayaa wiilku guriga uu ka tagay wiilku guriga aan keenay ma yaqaano adreeskiisa meelaan u raadinana ma naqaano wiilkii waa ka daba orday waa raacay meeshaas ayaad igala xiriiraysaa ayuu yiri meelaha stationada tareenada ayuu wiilkii iska seexday ayay leedahay hooyadaasi Soomaaliyeed muddo markii uu seexanayay wiilkii halkaas ayay gabdhihii kale ee wiilka la dhashay ee odaguna dhalay waxay yiraahdeen hooyo odaga iyo wiilka waxaan dooranaynaa wiilka waana in aad wiilka keento haddii kaleeto annaguna waa ka tegaynaa guriga dhibaatadaas ayaa haysata ayay leedahay oo in gabdhihiina ay dhaafaan ninkani waaba nin raga laakiin gabdhihii inay duurka galaan ayaan ka cabsanayaa odagiina wuxuu taagan yahay wiilka iyo anigu isku xiro kuma jirayno sheekh ii soo duceey talana waa kaa rabaa ayay ku leedahay falyatafadal mashkuuran wamaajuura. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. horta adduunyada waa la isku imtixaamaaye horta ilaahay waxaan kaaga baryaa imtixaankaa ku haysta inuu kaa saaro muslimiintana uu ka ilaaliyo ayaa ilaahay weydiisanayaa subxaana wa tacaala gabadhani bal horta marka koobaad adiga dib iskugu noqo oo dib iskugu laabo. Assalaamu calaykum Axmed waa lagu maqlaa Axmedow gabadha waxaan leeyahay dib iskugu laabo bal horta adigu marka koobaad maxaa kaa khasan maxaa kaa khaldamay. assalaamu calaykum Axmed Zawaqaca waa ku maqlaynaa waa diibtay masha Allah ma maqasho anaa waxay ku soo dalxo hoos baan ka wacaya inuu gaangalay ku socdo ما شاء الله وجه. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. horta gabadhaasi imtixaan baa haysta ilaahay tabaaraka wa tacaala imtixaankeeda ha ku baasiyo waana kuu soo ducaynaynaa. horta marka koobaad bal adiga dib iskugu noqo bal hooyada iyo aabbaha ma nool yihiin
oo horta ma ka ducaysatay bal baa garoonkaagii dambe dib ugu noqo wax nafsi ood horey u gashay hadduu jiro bal horta ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqo oo u toobadkeen toobad saxiix ah taasi waa ka muqadimi iyo hordhac adiga khaas ku ah ilmihii baa layga xidhay odaygiina waa i dayacay mana i furin markii la soo daynayana wuu diiday inuu ii raaco markaan dhexda soo wadu iila soo xidhiidhoo yidhi haddaad wiilkaa guriga keento waad iga furanta odayga waxaan leeyahay miyaadan ilaahay ka baqaynin war zawjadaadii iyo xaaskaagii xataa haddaad furayso ma saasaa lagu furaa ilmahaagii oo xabsi ku jiray oo la soo wado inaad dhahdo waan ku furaya haddaad keento tawfiiqda allaha ku waafajiyo miyaynan ahayn inay timaaddo hataa haddaad cadhaysan tahay oo markay ayadii ilmuhu ay yimaadaan inaad si wanaagsan aad oga wada hadashaan miyaadan odaygii guriga ahayn miyaadan qawaamada iyo maamulka adigu haynin reerkani inaad isku waddo miyaan adiga waajib ku saarayn ilmahan yarka ah ee la xidhay si kastaba ha lagu xidhee ma dad kalu haystaa ma sow ma ogid laba dhib hadday isqabsadaan midka fudud baa yaa la qaataa maxaad ola tashan weyday dadka culummada iyo cuqaasha iyo waxgaradka tajaaribtaan soo maray maxaad u dayacaysaa ilmahaad waddankaala keentay adigaa waddan keenay adaa waddankan keenay adigaa af libax ku riday adigaa badda ku tuuray kadibna ayagoon dabbaal aqoonin ayaad haddanana reerku duminaysaa ilaahay miyaada ka baqaynin xanaaqa iyo xamaasaddu waa shay xikmaddu iyo deganaanta iyo caqliga iyo cilmiguna waa shay xanaaq iyo xamaasaddu waa shay degdega iyo shaytaanku waxay wataanna waa shay ilmahaagii oo xidhan xaaskaagina haddaad keento waan ku furay arrintaasi khatarteeday leedahay midda labaad oo waxaa ka daran mar haddiiba la keenay inaad haddanana aad dhahdo ama aniga ama adiga oo xal kale miyaad weyday oo qaab kale miyaad weyday xataa hadday noqoto in wiilkan diintiisa la badbaadiyo ilmahan diintiisa iyo mustaqbalkiisa in la badbaadiyo sac waa yeela sumad ooma baahnee war haadha magacii jir maxaa la yidhahdaa aad tigidh u goosan weyday oo aad soomaaliya u aadi weyday ood hooyadaa u aadi weyday ood aabbaha u aadi weyday ood u dhihi weyday waan cadhaysnahaye waagaan soo cara baaba'aan aan soo noqonayaaye bal adiga wiilkaagana isla boodbooda anigu ma arki karo wiilkani war caqli kale ma garan weyday waddankan yurub haddaad joogto iyo maraykan ma u safri weyday ee qof kaloo saaxiiba tihiin ma u safri kari weyday maxaad reerka u dumini maxaad wiilkaaga aad waraabaha u siini meeqa dhulwaa iyo meeqa yaxaas iyo meeqa maxaa la yidhahdaa gorgor ayaa ama hawada ka soo degaya ama dhulka ka cunaya ama badda ka boobaya subxaana allah war ma ilmo yar baa maanta la saaraa ilmo yar oo gurigaaga kugu soo xaroonaya miyaa maanta iyo xaaladdan la joogo war miyaa la saaraa meeqa waraaba ayaa bannaanka u taagan oo meeqa dhurwaabaa bannaanka u taagan oo meeqa libax baa bannaanka u taagan oo meeqa yey baa bannaanka u taagan oo meeqa shabeel baa bannaanka u taagan oo meeqa abeesa bannaanka u taagan oo meeqa awe aabbanimadii awe mas-uuliyaddii oo xataa adu haddaad wiilka aad saa ugu cadhootay hooyada dhashay maad u daysid inaan labada qof mid unbuu ogol yahay hadduu ayada ogol yahay ayada maa u daysid xagga diintiisa xagga salaadiisa xagga caqiidadiisa bal ha ka shaqaysee maad ayada u daysid maxaad ayadana u furi oo reerkaaga aad u dumini midda kale oo intaa ka cajaa'ib badan ilmihii waxaa lu leeyahay tareen buu seexanayaa subxaana allah oo meelo qashin uu seexanayaa annaga hadda wiilkaa xaalkiisa war kama hayno laakiin cunug yaroo la dhalo waddamada reer galbeedka jooga weeye waxaan qiyaasayo oo maanta gacanta adig kuu soo galay carruurtii gabdhihiiba waxay leeyihiin hadda annagana wiilkaan aadaynaa oo guriga waan ka tegaynaa hooyadaaya allaha kuu fududeeyo
oo xaalkaaga allaha kuu dhib yareeyo waxaan kugula talin lahaa dadkaas aad la joogto ee culummada ah intaad marti qaadood oo u yeedho waxaad dadaa bal zawjkaygiiyo anigana wada hadalsiiya wareedhe odayga soo walaalo lama dhalanin oo asaga cid la dhalay ma jirto ciddii la dhalatay u yeedho waxaad dadaa bal aniga odaygana wada hadalsiiya gurigii shadar madar buu noqdo wuu kala yaacayaa gabdhihiina way yaacayaan wiilkana hore u yaacay anigana ninkii waa i furay waa ka asagana meel cidluu taagan yahay war sidan xaq ma aha cadaaladna ma aha waxaan ka shaqaynaynana ma aha ila talida aan intaa ku daalaynana way khilaafsan tahay ilaahay ha laga boqo tabaaraka wa tacaala oo reerka la isku celiyo oo reerkaba ha laga shaqeeyo inay isku soo noqdaan oo wiilkii soo celiya oo gabdhahan joojiya oo islaantii soo celi oo adiga shaydaanka iska naar oo adigaa oday ahe war reerka ha kala dirine gabdhahana dhinac ha u dirin wiilkana tareenka ha u dirin islaantana hawada ha u dirine adigaa ilaahay mas-uuliyadda kuu dhiibay war ilaahay reerka oga baq wallaahi waa lagu weydiin maalinta qiyaamo oo adigaa nin ah alrijaalu qawaamuuna cala annisaa war awa caqligaagii war awa maskaxdaadii war awa raganimadaadii war awe waxgaradnimadaadii awe intaasoo masale away kuu taallaa ilaahay ka baq tabaaraka wa tacaala gabadhana waxaan leeyahay masalena waa masalo talaaq aho u baahan in la eego xaalkeeda iyo siduu ku dhacay waa midda labaadne waxaad yeelaysaa dadka meesha kula jooga intaad u yeedho xaajigana ha lagula arko gabdhaha yaryarkaana ha la celiyo wiilkaa yarkaana dib ha loo soo celiyo reerkaas siduu dib u dhismi lahaa ha laga shaqeeyo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala aadna waan kugu soo ducaynaynaa sabar iyo dulqaadna samee ilaahayna maalinta qiyaamo kaama qadiya dhibka ku maray ee ilaahayna waxaan kaaga baryaa adigana inuu kuu fahamsiiyo ee mid bal dib u fikirto oo war waxaan xaggay igaga yimaadeen oo xaggee layga haystaa mid intay dhahdo dib u fikirta ilaahay waxaan kaaga baryaa cudurkeeda garatana adigana inuu kaa dhigo wallahu aclam ما شاء الله شيخنا الفاضل جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك شيخنا الفاضل الله سبحانه وتعالى حق بركيه غيرها الله نوريو قلبك الله نوريو شيخنا الفاضل